waxaan u wanaagsan daawadayaasha inagu xidhan meel walba aad nagala socotaan iyo si kastoo noola socotaanba waa maamuus media production inoo la gare muuqaalkan inta aanan gudaha u gelin muuqaalkayga maanta faahfaahintiisa sidoo kale subscribe inoo saar channelkan waanu kaaga mahadcelinaynaa haddii iminka unaad nagu soo biirtay ka mid noqo asxaabta inagu xidhan inoo subscribe gare waxaanu soo gudbin doonaa muuqaalo ka hadlaya arrimaha bulshada siba bulshadeena soomaaliyeed si qaasa u taabanayo waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhexdhacay ayaan soo gudbin doonaa iyo warar kala duwan oo aanu idinkaga diyaarin doono geyiga soomaalida waad ku mahadsan tihiin saaxiibayaal inagoo waqti badan idinka qaadan doonin waxaan si toosa u abaareynaa muuqaalkayaga maanta dulucda muuqaalka haddii aanu ku horeeyo waxaan ku jexjeexeynaa haddii abweyne raale ka noqdo social media waxaa aada uga socday guux iyo sidoo kale hadallo kala gedsan oo baraha bulshada aada u qabsaday oo la xidhiidha fanaanadii fanka isaga fadhiisatay ee xalimo goobaad oo soo rogaal celisay iminka saacadihii aynu kasoo gudubnay waxa ay dadku caro ka muujiyeen sawirro aada u kala duwan oo si teelteela usoo dhacaya oo ay ugu soo bandhigaysay baraheeda kala duwan ee bulshada gaar ahaan aaladda facebooka barahaasi oo dad badan ay aada ugu xidhan yihiin oo fanaanadan taageero u ahaa islamarkaana aada ugu faraxsanaa in fankii ay isaga baxday laakiin waxaa iminka lama filan waa ku noqotay marka ay arkeen oo ay dhaayahoodu qabteen sawirro aada u kala duwan oo fanaanadan ay soo bandhigtay sawiradaasi oo anshax ahaan aada markaasi fanaanada waxyaabihii ay iyadu horey u sheegtay inay isaga hartay oo dar alle ay ku dhaaftay beeninaya oo meesha ka saaraya taasi oo muujinaysa weli in fanaanadu aynan fanka ka bixin amaba ay u muuqato in ay jireen brogaraamo iyo mashaariic kale oo fanaanadan loo yaboohay kuwaasi oo gadaal ka riixaya in fanka ay isaga baxdo oo ayn dar alla ka ahayn laakiin inagu ma ogaan karno laakiin sawirro aada u kala duwan ayaa jira oo nafta iyo shaydaanku lama kala kontrooli karo oo shaydaanku waxa uu cadow ku yahay nafsadeenna sida alle subxaana watacaala qur-aankiisa inoogu sheegay waxaa inaguna la gudboon mar walba in aynu la dagaalano oo juhdi aan ku bixino sidii aynu oga dheereen lahayn nafteenna si uusan nooga awood roonaanin hase yeeshee haddana waxa ay dadku aada ula fajiceen inkasta oo ay jireen commentiyo aada u kala duwan oo dadku ay qofba fikirkiisa uu kaga dhiibanaya waxa ay la tahay fanaanadan dad badan oo aada uga falceliyay qaarkood oo aada ugu canaaninaya tallaabada foosha xun fanaanada ay ku kacday ama xalimo goobaad oo horey fanaanad u ahayd ay ku kacday oo ay sheegeen in aysan dhaqanka iyo sidoo kale diinteena suubanba aysan sali raatoona lahayn arrintaasi ha yeeshee haddana waxaa aada social media uga socday cambaareeyeen guud oo fanaanada dusha looga tuuraya oo ku aadaneed sawiradii kala duwanaha ee ay soo bandhigtay dhowaanahanba sidaa ka muuqatay fanaanadu waxa ay sheegtay in fanka dar alle isaga dhaaftay sidoo kale waxaa jiray sawirro kala duwan muuqaal ay soo dubtay ayaa jira iyadoo ku sugan haddaba xaramka oo cumro u joogtay halkaasi soona cumroysanaysay sidoo kalena ka mid noqotay dadkii alla toobad wanaagsan markaasi ka rajeynaya islamar ahaantaana sheegay in fankii ay ka baxeen oo dariiqii saxda ahaa uu alle ku toosiyey haddaba waxaa la yaab markala noqotay in fanaanadan waxyaabihii ay ka hadlaysay aynan noqon waxyaabihii saxda ahaa ee fanaanada iyadu sida ay horey u sheegtay hadalladeedu ku jiray oo ahayd in fankii ay ka hartay in aynan doonaynin in dib ay ugu laabato fankaasi oo ay ogeed ay dareentay in ay ahayd waxyaabo shaydaan u qurxiyey sidoo kalena ay aakhiradeeda u shaqaysan doonto wixii iminka ka dambeeya laakiinse sawiradan goonooyinka gaagaaban fanaanadu ay xalimo goobaad aan iraahday ay xidhneed ayaa noqday sawiro aada u qabsaday social mediaha dadka qaar ka mid a dad ka falcelinaya arrintan waxaa ka mid ahaa dad badan oo qaarkood canaan dusha uga tuurayay saygii dhowaan ay isguursadeen oo ay qalgaleen qaarkoodna waxay iska weydiinayeen bal miyaana ahayn marwo la qabo oo reer leh maxay tahay dhaqan xumada ay u horseedayso ummadda maxayse tahay hablabiskeeda aadka u qariban oo ay la soo shacbaxday maadaama ay tahay haweeney la qabo oo marwo ah sidoo kalena caruur ay leedahay ha yeeshee haddana waxaa markaa dadka intooda badan ay calaamatu su-aal saarayeen sida ay fanaanadu fanka oga baxday iyo inay jireen arrimo ku laamaanana
mashaariic kala duwan oo fanaanadan markaas qorshayaasheeda qayb ka ahaa markii ay fanka ka bixisay iyo arrimo aada u kala duwan oo soo babaxaye si kastaba ahatee waxaanu mar walba u taagannahay in aynu dhanka wacyigelinta wanaagga iyo samaanta iyo kheyrka aynu ummadda kala hadalno oo mar walba wixii markaasi dhibaato oo karaahi ku ah ummadda in aynu ka suulino innagoo aanu ahayn haddana dhanka afka culammadu ku hadleynin balse dhanka baraarujinta baraha bulshada aynu ka wadeyno si kastaba ha noqotee waxaanu isla sii qiimeyneynaa bal marxaladihii kala duwanaa xaliimo goobaad fanaanada finland kasoo jeeda ay ahayd sweden ayay ku nooshahay in muddaa waxaana ay iyadu iyo sidoo kale kooxfaneedka sida gules simba iyo sidoo kale safaan halac ay isugula jireen fankii sugaanta ka hor intaanay shaacininba in fankii ay ka fadhiisatay haddaba gruubkan waxa ay aada u madadaalin jireen bulshada ijaaliyadda soomaaliyeed haddii ay noqon lahayd masraxiyada habeenada ay jiraan fantasiyaha dabaaldegyada iyo sidoo kale caruusyadoo kale oo ay iyadu ka mid ahayd dadka aada markaasi ay usoo xulan jireen dadka soomaaliyeed ee jecel in arooskooda ay kasoo muuqdaan fanaaniin kala duwan ha yeeshee haddana waxaa markaasi dhifi naadir ahayd in fanaanadan la arko iyada oo ka hadlayso arrin ku saabsan in fanka ay ka fariisatay oo aan ka ahayn muuqaaladeedii ugu dambeeyey hadaladii ugu dambeeyey go-aankii ay qaadatay la xidhiiray in hawshii fanka ay soo lalaabtay oo ay kusoo biirtay fanaaniinta fanka isaga fariistay oo holgabka ka noqday sida maxamed b k sidoo kale fanaaniin dhowra cabdihani waxaa ka mid ah fanaaniin aada u kala duwan oo xitaa xidigaha geeska africa ka mid ahaa oo fanki ka baxay ha yeeshee xamde ay ku jirtay sidoo kale xamde queen iyo fanaaniin aada u tira badan oo aanu halkan kusoo koobi karin laakiin muddooyinka ugu dambeeyey waxaa aada markaasi usoo badanaysay fanaaniinta soomaaliyeed fanka ka baxaya haddana waxa ay taasi dhiirigelin u ahayd jiilka imika fanka ku dhiiranaya kuwaasi oo ay kaga wacyigelinayaan in fanka aanu ahayn wax wanaagsan oo lagu dhiiran karo in fanka halka uu u dambeeyo qofka fanaanka ah ay noqon karto in aakhiradii uu ku waayo in uusan camal wanaagsan dunida kala tegin haddii alla subxaana watacaala qofkaasi tiis ay gasho oo ay ku imaato oo alla u oofsado in ay jirin wax adduunka u yaala si kastaba ha noqotee waxaa jirtay marka dhowr fanaaniin oo iyagu fanka ka baxaya oo doorbidaya in dar alle ay fanka isaga baxaan oo ay joojiyaan fasahaadka ummadda ay ku fasaahidinayaan howlaha fanka waxaana fanaanadan ay ahayd mar qura ay aada markaas usoo jiidatay bulshada oo aada oola dhacay tallaabadaasi ay qaadatay laakiin waxaa iminka muuqataa intaasi ahaydba halbacaad lagu lisay oo xaliimo goobaad iminka ay u muuqato in aynan fanki ka bixin oo aynan dhab ka ahayn go-aankii ay horey u shaacisay waayahay muuqaalkan subscribe inoo saar meel walboo joogto si kastoo kuusoo gaarayo sidoo kale subscribe waxaad saartaa janalka gambaleelka furo muuqaalka like garee la sii wadaag asxaabtaada aad baad ugu mahadsantihin sidaad nagu xidhan tihiin